dalka Ingiriiska ayaa sanadii 2012 waxa ka dhacay sheeko aad u cajaa'ib badan kadib markii 4 dhalinyaro ah oo jaamacadaha wax ka bartay ay baaritaan cilmiyeysan ku sameeyeen waxyaabaha qeyral caadiga ah waxayna rabeen inay ogaadaan bal waxa ka jira aqoonta ay muslimiintu aaminsan yihiin oo ah qofku marka uu dhinto oo la aaso in naftu ay dib ugu soo noqoto ayna wareystaan malaa'igta nukur iyo nakiir waxaana ay bilaabeen iyagoo isticmaalaya kamaradaha infraredka ee habeenkii waxarka ee heerkulka ku shaqeeya waxayna doorteen qof dhintay oo iyagu markii la aasay kadib ay dib u soo faqeen waxayna ku xidheen kamaradahan infraredka qabriga waxaase arrinkaas tacajabka leh uu ahaa kadib markii 3 beri kadib ay usoo noqdeen natiijadii oo dib ay u faqeen qabriga ay ugu yimaadeen kamaradihii infraredka ahaa oo gebi ahaanba gubtay oo qalfoof noqday waxaase ka siyaas tacajab badnaa in kamaradahan gubtay ay ka ureysay ur nooca miskiga oo aad u udgoon waxaase caadiyan marka uu caag gubto uu uraa sidii caag gubtay oo ur dheer waxaase ay la yaabeen meesha uu ka yimiday urtan miskiga oo ay sheegeen in kamaradahan ay gubeen magnad aad u xoog badan oo ay garan waayeen nooca uu ahaa waxaana tijaabooyinkan oo kale lagu sameeyey wadamada Hindiya iyo Yemen oo sidan oo kale kamarada loogu xiray qabriga waxaana sidan oo kale u gubtay kamaradihii lagu xiray qabriga haddii aad ka heshay sheekadan like oo la wadaag asxaabtaada